السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وايد السلامي صباحنا وناكسن ساكا يا مركلة ساكا عربانا نكالا دو الله يدم الدينتا والله لا أرتو دينتو ولا اسميدن كو هيدا بس وحي يدن لطاي واحد إنك أليدهينو سوق هذا نيسانو سارة أكي لسانو كالي رنحانتي دينتو dhibaatada ay leedahay aad ay u fara badan yihiin aadna way u culus yihiin sida buurahaad aragtay ee dusha laga saaro oo kala weeyaan deynta culeyskeeda dhibaatadeeda ciqaabteedana waxaad ku muteysan kartaa cadaab inaad ku gasho saa ogtiinba maalmahan waxaa shalay waxaa la waday nin dilay gabar maama ku lahayd deynteedii ayuu yiroon soo siinay iimaa markaas uu inta dilay oo bac miya mase jawaan ku duuduubay ayuu wuxuu ku riday sewage ama boosaneer saa u taqaanba dalaq intaas oo maarad saacadood la raadinayay oo laga samray marka deyntu waxaa kala fududaata deyntii ku lahayd oo dhan inuu nafsadeeda gooyo marka walaalayaal deyntu dhibaatay leedahay la iska ilaaliyo qof walba oo deynta u jeclaada sida wuxuu asagu leeyahay way ka go'an tahay hadda koor qisayro dhacday ayaa waxay ahayd xilligii ay jireen asxaabadu ay jireen ayaa laba nin oo saxaabo ah oo saxaabiyaal ah oo saaxiibo ahaa ayaa waxay ku ballameen in hadduu midkood dhinto hormaro kan kale uu u soo waramo oo habeenkii riyada la isugu imaado camal ayaa lagu ballamay maalinka dambe mid iska dhintay waa la soo duugay saaxiibkiis muxuu sugahay habeen kasta wuxuu sugay inuu riyada ugu imaado hal sano ku qaadatay inuu riyada ugu imaado hal sano kadib uu imaaday wuxuu yiri saaxiib maxaa kugu dhacay in badan ayaan ku sugayay oo riyada kugu sugayay mana aanan ku arkin sabab maxaa dhacay halkaas marka waxa uga taala calaamad iyo waxa uusan ku aqoonin awal maxay tahay yiri calaamadan kugu taala saaxiib wuxuu yiri deyn ayaa la igu lahaa 40 shilin ama 40 dirhan ayaa la igu lahaa oo ninka halkaas joogo yahuudiga ayaa igu lahaa 40 shilin sanadkaas uu qaabnaa ayuu yiri waxaa sameeyay saaxiib inta baxdo dhagaxa guriga geeskaas ka yaala hoostiisa ka soo saar 40 shilin oo geey anigu wuxuu u wada ayaan meesha casri u galay waxaan isir casirka soo duko ka bacdi lacagta u geey meesha lacagta ku duugay salaada markii la dukadana waqtigii baa igu dhacay saaxiibo inta qaado orada u geey halkaas aan ka maqnayna lacagtaas aan u ciqaabnaa ayuu yiri subhanallah wala yaa marka uu la shaqeysto wuxuu yiri mana dareentaan maadaama ahlu qabuur idoo dhinteen dadka nool ma dareentaan haa waa dareenaa ayuu yiri haddaba aniga wuxuu yiri gurigeygii gabar yar aniga aan dhalay ayaa sakaraad hadda oo xanuunsanayso xaggeena soo aadi rabta macnaha soo dhima rabta yaa bisad yar oo anigu aan quudi jiray guriga jooga jirtana way dhimato inta cid ka tagtay ay meelahaas ku dhimatay ayuu yiri ciduna ma oga marka deyntu horta dhibaatada ay leedahay wax la soo koobi kara maahan waxay ka mid tahay 3 shay oo qofku hadduu asagoo ka aamina dhinto oo jannada gali karo sababna ay u noqonayso inuu jannada gal maadaama uu aamin ka yahay marka walaalahaygiyo deynta ha fududeysanina deynta yaa la fududeysan ee la iska ilaaliyo ka baahna inta maaragtay deyn ay kugu go'ay lahayd midda kale adduunku deyn uu kala socdaayo waxyaabo badan deyn lagu kala qaataa oo maaragtay ganacsiga oo dhan deyn ayuu inta badan salka ku hayaa laakiin waa inay ku qoran tahay waa inay kurba kugu haydaa waa inaad iska bixidaa doonaysaa laakiin haddaadaba ogeyn in adigu leedahay inaad ay dib kugu ahayn ka waran dada 24 saac wax deensada qof walba wuxuu leeyahay qofkaas deeyman ku soo celinayaa maanta ka qaadana kugu dambeys dib ma arkaysid deyntu dhibaato ay leedahay deyntu culays iyo dhibaato aan laga bixi karin ay leedahay ani deynta aad u neceb runahaantii waxaan iraahdaa dadka sidan deyntu nacba deynta labada nacbaan lahaa wallaahi wax badan ayaa ma aragtay deynta laga badbaadin deynta aad u necabahay
waana aan ka cabsadaa weliba. dadaa waxay ugu dhaheen deynta waxaad uga cabsanaysaa qalbigaa faqri ka tahay. oo maxaa dhacay see faqri uga ahay inaad xoolo helina aaminsan tahay oo iska bixi karin micnaha. sideeda banaan waxaada lee laguma tashado, wax inay ku soo gelayaan aada ogeyn laguma tashado. intaad ka ahaa karta deynna waa laga ahaadaa ood macnaha iska celin karto. wax yaroo maanta markii bishu 2 ka dhiman tahay haddii adeegu kaa go-o ood maanta ka fursaweyso inaad birsacada sakarsa ka fursaweydo, waayo haddii raashin guri kuu yaallo qudaarta hilibka ay kaa go-aan haddaad badarka garcadda dabka isaga tuurato dhibaato ma laha. haddaad inta soo qaadato aad maaragtay iska baxayso markaad adeegu lacagta soo gashana wax dhibaato ma laha. laakiin haddii muraadkaaguba uu yahay soo qaado, waa iska bixi doontaa soo qaado, iska soo qaado yaa markaad tiraahdo dadka wardeyntan iska dhaafan lagu yiraahdo qalbiga faqri ka tahay ka waran. qaninimo aan jirin dadku nooshahay ka waran. way fiicantahay inaad jadiilo leedahay, inaad wax sugayso ood rajaysan tahay inaad wax uun heli doonto, inaad aaminsan tahay rajada noocaas ku noosh inaad maalin uun faqri hadduu ku hay ka bixi doonto. waa wax wanaagsan oo ilaahay rajo wanaagsan laga malaysto. laakiin dadka xoolahooda inta soo qaadato waan iska bixin doonaa haddaad ku qaadato waad ku dhiman kartaa adigoo lagugu leeyahay, haddana ciqaab ayaa ku geli kartaa, waa lagugu cadaabi karaa weliba midda kuu qoran. ama markii la ogaado inaad deyn ka qaadato dadkii ku ogaa in lagaa baxsho oo la ogaado ama inta lagugu sheegto la yiraahdo waa run qoftan Faadimo deeni ka qaada jirto wax sax oo loo yahay. laakiin qof aan lagu ogeyn inaad wax ka qaadato haddii deyn intaad ku aad la dhimato iska aamusto isan kuu cafin weliga waad u ciqaabnaanaysaa. ma fahanteen walaalayaal oo deynta la iska ilaaliyo. run ahaantii waxaan ogaa aniga aan u soo joogay maamo weyn oo ganacsato ah. dadku ma ogtahay deynta dad faqri kaliya uma qaataan, dadka ganacsatada ah qaarkood ayaa ugu daran. maamo weyn oo ganacsato ah ilaahay baa weyne oo bismillaah soo dejida jiifafka iyo fadhiyada iyo adduunyo gadda ayaa maalin dhimatay. markay dhimatay ayaa waxay ku dhimatay meel shaaric ah ama meel suuq ayay ku dhimatay. markaas waxaa dhacday hal mar waxaas la kacay dadkii ay wax gadaayo dhan, hadday qudaaraheed iyo hadday hilib iyo hadday caanaheed iyo hadday maaragtay suuqiyo dhan deynaan ku lahaa lama qaadayo meydkeeda. subxaanallah. marka deyntu way dhib badan tahay, aad bay u dhibaato badan tahay. ilaahay intuu wax ku siiyo intaad nooshahay ee nafta kugu jirto deyn iska ilaali. ka qaad intaad deyn cuni lahayd inaad qadaa kugu dhaanto wallah. haddii kale ooda ka maarmeynin wixii lagugu leeyahay waa inaad iska qortaa oo lagaa bixiyaa. gabar anaga hadda kor waxaan xasuustaa xaafadan deganaa ku dhimatay 2013 meelahaas ay ahayd. maalintii dhimanaysa maalintii ka horreysay waxay ku qortay buug 2,000 oo shilin ayaa lagu leeyahay haddaan caawo dhinto. ilaahay baa kulay inay dhimanayso tusay 2,000 oo shilin heblaaya igu leh ayay buugaas ku qortay. dad aad u danyarna way iska ahaayeen ka waran. bal qofka aad u danka yar baahi walbana u baahan ee deyn iska ilaaliyay haddana halihiira ee lagu lahaa iska qoray soo qof nasiib la maahan. waxaad leeyahay walaalahayga meel walba joogtaan subaxnimo wanaagsan iska ilaaliya deynta iyo dhibkeeda inaa ka baahnaato oo aada cun ayaa lagu qaajin deyn inta lagu yeesho aad la dhiman lahayd ama lagu qabsan lahaa. reero ku duma ayaa jira deynta daraadeeda. nin waxaan ayaan dhaweyd maqlay gabar ku furay lacag $600 oo lagu yeeshay. bal aqligaas subxaanallah. qof dhan guri joogto guri looga tagtee mushaar iyo biil la siinaayo $700 oo deyna ay ku soo baxso dhibaato maahan soo ma. lacagtii ilmaha loogu dhiibay bay ayuu tusay gashay wixii ku qabsatay. dukaankan ka soo qaada raashin, dukaankan ka soo qaada hilib, kan ka soo qaada qudaar. subxaanallah intaasoo lacaga
maalin dambe 3 qof oo kala socota ayaa ilada guriga ku kulantay ninkii shaqo ka yimid kan maxaa rabtaa naagtaan oo baahna guran deynayaan ku leenahay meeqa deynaa ku leedihiin lacagta $200 markii la isku sheegay ayaa lagu yeeshay gacmuhu madaxa saartay hoogta biilan ku siiyaa subax kasta shaqadan qabow kugu dheelmadaa inuu guriga ku dumay ayaa dhacday ways waasho wixii tiri biilan siisaa maxaa kala nasiisaa hadda biilaaba qaatahay xita deyntaada daraysa cuntadan dadkan cuntada gada oo cuntada qaadanaysa maxay tahay guriga meesha ku dumi haye haddaad marka adigu xoolaha kale aqoonin ee suuqa mid yihiin deyntu dhibaatada ay leedahay dadku ma fahansana way iska qaadanayaan marka walaalay waxaan leeyahay meel boo joogtaan warkayaan idinku badin iska ilaaliya inta deyn iska ilaaliya hala dhimanina adigoo ka amaana oo ka nadiifa haddaad dhimato inuu ilaahay naxariistiisa jannada ku gasho ayay u badan tahay laakiin adoo deyn lagu leeyahay dhimato nabiga sallallahu alayhi wasallam dhihi jiray qofkan deyn lagu leeyahay adigu ku dukado dhihi jiray ama haddaan qof dhig aniga ku dukanay aniga nabi Allah ka bixinaadii qof tira uu ku duka jiray haddii wax ka baxshan la waan xidhu idinku dukada marka deynta aad ay culus la iska ilaaliyo subaxnimo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like share comment waa xaqiina maalnimo wanaagsan